soddon cisho ayaan isku soo xiray buur ku taala in the middle of nowhere si aan u barto soddonkan cashir oo noloshayda igu qaadatay inaan soddon sanadood oo noloshayda ka mid aan soo ogaado soddonkan cashir waxaan kula muddo daqiiqada waxaan kula wadaagi doonaa soddon cashir oo iga qaadatay soddon sanadood oo noloshayda ka mid ah inaan ku barto magaalada ku noolaanaysid waa noloshaada wax ku saameynaya talabaad ay ku saameynaysaa qofka yad la noolaanaysaa saaxiibada ayay noqonayaan qofka nolosha la wadaagaysa ayuu noqonaya ya noloshaada ku hagaagsanay taasna saameyn weyn bay ku yeelanaysaa saddexaad waxa weeyaan shaqada qabanaysa maxay noqonaysaa shaqada qabanaysid maxay noqonaysaa saddexda waxyaabood ayaa noloshaada ku horyaal qofku saddexda waxyaabood dadkan successful ka sheegayna waxay xaliyeen waa saddexda waxyaabood marka magaalada ku noolaanaysid cid la noolaanaysid iyo waxaad qabanaysaa saddexda si fiican uga fiirso noloshaada mas'uuliyadeeda gacanta ku qabso nobody's come qofku imanaya oo ku safe gareynaya ma jirto adiga boqolkiiba boqol noloshaada ka mas'uula meeshaad maanta joogtid meeshaad bari joogaysid sahan dab waxaad joogaysid ilaahay doorasho ku siiyay ibn aadamku awoodda ugu weyn uu haysto ama amaanada ibn aadamka la siiyay waa doorashada ibn aadamku waa wax aad u cajiiba ibn aadamku ma kaliya inay si shimbirto kala duuleen laakiin wax shimbirta ka weyn bay sameeyeen ibn aadamku ma aha sidii nibirigo kale inay badda galeen laakiin maraakiib bay sameeyeen ilaahay sababtu amaanada uu ilaahay leeyahay inna aradna al-amanata ala samawati wal ard fa abayna an yahmilha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula ayadaas inaan saxayan rajeynaya ilaahay uu ku leeyahay sababtu uu leeyahay amaanadu ma aha wax kale amaanadu waa awoodaad wax ku dooran karaysid awoodaad ku dooran karaysid aad ku dooran karaysid waxaad sameynaysid iyo waxaad noqonaysid iyo wax noloshaada ku horyaala waxaad ku dooranaysid taas weeyaan taasna cidna isaga siin haddaad iyada iska bixisid oo qof isaga dhiibtid challenge bay kuu noqonaysaa marka responsibility noloshaada gacanta ku qabso 100% nobody is gonna come take responsibility ku qaaday ma jirto arrinka labaad ee noloshu bartay waxa weeyaan noloshu waa problems kuma kala istaagayaan saddex bilood kasto noloshaada ku soo mara challenge baa ku soo maraya challenge kaas ama mid caafimaad buu noqon karaa ama mid dhaqaale noqon karaa ama mid wuxuu noqonayaa relationship xiriira noloshu waa continuous problems marka problemska sidee baad ula noolaan karaysaa sidee baad u xalin karaysaa waa inaad adigu baratid sida problemyada loo xaliyo the more problems aad xalinaysid the more noloshaada meel fog gaarayso dhammaan dadka successful ka aragtaan ama dhammaan dadka culimada maanta adduunkan nool lahay lama jeerta meesha joogaan waa dad xaliya problemyada dadka caadiga ah xaliyaan maybe adiga macquul tahay inaad noloshaada la daala dhacaysid laakiin qof kalena inuu xalinayo billions of qof inuu mushkilaadkooda xalinayo marka muhiimadu problems ka inaad jeclaatid problems kuma kala istaagayaan problems ku every single day way joogayaan marka inaad baratid sida problemyada loola dheel garay especially inaad emotion noqon oo Allah subhanahu si logical ula dhaqantid inaad eegtid problemka muxuu yahay sidoo yahay maxaan ka xalin karayaa maxaan ka qaban karayaa taasna wax weyn bogsinaysa cashirka kale ee isla ku xiga waxa weeyaan waxaad awoodada saartaa waxaad control karaysid waxyaabo waxa jirta inta badan gacantaada ka maqan dadku intooda badan riisaga nool yihiin hadan waxa heli lahaa hadan waxa kala sameyn lahaa hadan ka kala noqon lahaa hadan ka sameyn lahaa waxa soo dhan muhiimadu laakiin waxa weeyaan waa waxaad control karaysaa maxaa control karaysaa wasaad u fikiraysid maxaa control karaysaa waa ficilkaad qaadaysid maxaad control karaysaa xaqad Allah subhanahu waxa sameynaysid labadaas baad control karaysaa ama attitude-kaaga control kartaa book bajir leeyahay the difference maker attitude-ka Allah subhanahu adduun aragaaga marka in focus ka saartid ficiladaada iyo adduun aragaaga aad ku eegaysid waxaas weeyaan taad control karaysid waa taas waxa adiga ka baxsan ma control karaysid cimilada ma control kartid dawladdu waxay sameynaysaa ma control kartid wararka dagaalada dhacaya adigu ma control kartid anything waxa soo dhan waa wax adiga ka baxsan laakiin maxaa control kartaa waxaad akhriyaysid waxaad dooranaysid waqtigaaga meesha ku bixinaysid saaxiibadaada meeshaad waxaynaysid magaaladaad ku noolaanaysid Allah musta'an qofka nolosha la wadaagaysid shaqadaad qabanaysid waxa soo dhan waa doorasho adigu aad leedahay arrinka kale ee isla bartay waxa weeyaan waxaad u baahan tahay hal guul oo kaliya haddii aad hal shay ku guuleysatay noloshaada maybe imtixaan buu noqon karaa maybe license gaari uu soo qaato noqon karaa maybe wax kale oo juhdi iyo dadaal gelisay oo ku guuleysato noqon karaa hal win oo kaliya ta noloshaada u baahan tahay halka win haddii aad gaadhid wax iyadii baad duplicate oranaysaa iyadii baad soo celinaysaa iyadii baad ka fikiraysaa iyadii baad soo celinaysaa iyadii baad leedahay taas kaliya ta kugu filan marka noloshaada all you need is one win haddii aad hal shay ku guuleysatid noloshaada waxa yaraatay ku istaajin karaya ma jirto painka ama inuu xanuun kugu dhaco ama inuu xanuun kugu dhaco emotion ama xanuun kugu dhaco painku waa wax laga barto weeyaan nolosheena waxa la yiraahdaa painku waa progress painku
waa price-ka progress-ka inaad progress samaysid oo hore u socotid waa price-kaad ka bixinaysid pain-ka weyn marka haddii aanu noloshaada pain kugu dhicin haddaan noloshaada challenge arag haddaan noloshaada waxba kugu dhicin oo bartii gurigii hooyada ku dhalatay unaad joogtid oo bartii aad ku kortay uun joogtid oo bartii adigu noloshaada bartii taagan tahay meel fog ma gaarsid marka waxaad u baahan tahay inaad painka eegtid arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan discipline inaad yeelatid oo motivationka iska ilowdid disciplineku waa inaad wax joogtaysid oo tiraadid waxaas waan samaynayaa oo anyway samaysid arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan baaskaagii ama meeshaad ka timiday mustaqbalkaaga ma qeexi karayo mustaqbalkaaga waxa qeexaya waxa maanta samaynaysa weeyaan baaskaaga waa meel wax laga soo qaato laakiin maaha meel lagu noolaado marka wixii aad noloshaada ka timiday iyo wixii noloshaada kugu soo dhacay mas'uul kama tihid waxa mas'uul ka tahay mustaqbalkaaga maxaan rabaa maanta maxaan rabaa inaan gaaro maxaan noloshaada korriima ka rabaa inaan ka sameeyo taas baa ka muhiimsan inaad baaskaaga iyo wixii ku soo maray aad isku wareerisid arrinka kale isna waxa weeyaan inaad bartid hard conversation ka loo haysto crucial conversation dadku intooda badan way ka wax yarood maanta aad dib dhigatay ama qof aad wax yar ku aragtay oo maanta discussion kala sameyn ayaa hadhow toole challenge kugu noqon karaya marka ka fiirso allahum sa'aan waxyaabaha maanta hor yaala crucial conversation waa inaad aqbashid wada hadallada adag inaad wajahdid oo siday tahay aad ku wajahdid and you will live si relief aad u noolaan no matter dadka qaar baa allahum sa'aan ka fikira niyo qofka bilow soo yarka san maanta dhan wax ila halinaya taas muhiim ah qofkii kalena waa dilaysa adiguna waa dilaysa marka waxa u baahan tahay haddii meeshaas wax yeelo niyo san yasan baa jirtay let we talk aan ka wada hadalno aniga I just feel like that nature bay iga timaada hadday wax dhacaan waxaas I have to talk and I have to of communication xumo weligeed isku dhaaf mayn marka taasna ina barata crucial conversation book baa jira la crucial conversation book akhri inaad hal xirfad ku fiicnaatid ayaa ka fiican inaad boqolaal xirfadood qaadid oo meel fiican gaarin hal xirfad qaad xirfada wadnaha dul dhig lacagtu waa tool aad isticmaalisid oo aad isticmaalisid noloshaada inay ku fududeyso ku gaarsiinay meesha ka kaxaynay meesha joogtid kuna geynay allah subhanahu nolosha waxyaabo ku fududeynaya laakiin it's not ultimate goal waa gaariga shidaalka lagu shubo shidaalku ma hadafka ee waa meesha la tagay marka lacagtu xagee ku geynaysaa weeyaan taasna muhiimada inaad focus ka saartid inaad ku xamdi yeeshid wuxuu ilaahay ku siiyay caafimaad baad leedahay dhalinyar baad tahay karti baad leedahay inaad taas ku xamdi yeeshid qof kastayba uma qalmo inuu ruuxdaada iyo maskaxdaada access u yeesho ka fiirsa dadkaad la wadaagaysa afkaartaada ka fiirsa dadkaad la wadaagaysa intentionkaaga dadkoo dhan ma wada jecel horumarkaaga dadkoo dhan kuma wada faraxsana dadkoo dhan ma wada aha saaxiib ka fiirsa marka dadkaad access ka u siinaysid noloshaada guushu inta badan waxay ku timaadaa inaad xagga dambe ka shaqaysid xilliga dadka ay faraxsan yihiin xilliga dadku ay shaqaynayaanna adigu waad nasan doontaa marka ama haddaad shaqaynaysaa ama gadaalba ka shaqaynaysaa 20 jiradaada haddii intaad 20 jirka tahay aad shaqaysid 30 jirkaaga ama 40 jirkaaga waad nasani laakiin haddii aad soo ciyaartid 20 jirkaaga iyo 30 jirka aad soo ciyaartid challenge ba ku noqonaysaa marka 20 waa xilligaad wax invest gareynaysid 20 waa xilligaad wax dhisaysid 30 waa xilligaad compounding ku sameynaysid 30 jir markaad soo gaadhid waa wixii aad soo dhistay ayaad compounding ku sii sameynaysaa 40 haddaad gaadhidna waa sheeko kale marka waxa u baahan tahay allahum sa'aa intaad 20 ka tahay inaad soo maalgelisid haddii 20 jirkaaga soo maalgelisid waxay dadku 30 jirkooga shaqeynaya adigu waa nasan doontaa inaad ilaahay dartii u qabatid shaqo kastood qabanaysid oo intentionkaaga niyadaada ku xidhid aakhiradaadii deganaan qalbiyeed iyo mid adduunyaba way ku siin doontaa inaad dadka cafisid waxay ku siinaysaa xorriyad raaxo qalbiyeed oo nan dadka kale ayna siineen marka isku day inaad dadka cafisid kuwa wax kugu sameeyay kuwa beenta kugu sheegay kuwa wax isku kaa daba mariyay kuwa wax qaldan kugu sameeyay barasada wax loo cafiyo kaliya tina wax ku riyootay kaliya kuma filna laakiin waxa u baahan tahay deadline inaad tiraadid okay waxa rabaa inaan sameeyo xilligaas baan ku dhameynaya deadline inaad sameysatid deadline kaliya tariya kuma filna inaad baratid taas arrinka kale isna ku xigay inaad baratid sida hadafka loo sameeyo hadafka sida loo dhigto inaad barataa okay maxaan rabaa inaan barto maxaan rabaa inaan sameeyo maxaan rabaa inaan qabto maxaan rabaa inaan noqdo inaad ka fikirtid mustaqbalka ayad quraan oo ila jirto ilaahay leeyahay war ka fiirsada waxaad barito leh noqon doontaan ama meeshaad u socotaan waa inaad ka fiirsataa marka kulliba nolosha ka baxaysa imika markaan arko dad waaweyn oo 80 jira markaan arko waxaan raadaa maalin ba tagi doonta xakaas adduunkan aayar bad ka bixi doonta soo waqtigan aad hadda haysatay hantidaadii sidoo maalgashataa arrinka kale isna ku xiga waxa weeyaan social media attention-ka laga helo maaha fulfillment-ka saxda maaha fulfillment-ka saxda social media waa tool aad ku gaari kartid fursad social media waa meel aad ka faa'iideysan kartid social media waa meel aad wax ku iibin kartid social media waa meel aad wax ka baran kartid social media waa meel aad wax ku dul dhisi kartid
marka waa tool aad haysatid toolka inaad ka faa'iidaysatid inaad buugaagta akhrisid maalinkaad akhriska bilowdid noloshaada will never same again isku day inaad wax akhris bilowdid maalinkaad wax akhris bilowdid noloshaada caadi noqon mayso waxa kaliya tan oran karayo it changed my life waa wax akhriska waayo any book baad raadin kartaa any mawduuc baad akhri kartaa any subject baad raadin kartaa and you can sit dadkii cadiimka ahaa ee taariikhda aadamaha soo maray ayaad la fadhiisanaysaa waqtigaad faamilkaaga iyo waalidkaaga iyo dadkaaga ku bixisid waa wax xilliga ugu raaxada badan ee noloshaada soo mari doon marka invest garee isku day Allah musta'an inaad ku invest gareysid nasiib uma yeelin oo waqti fiican inaan waalidkay wada noolaano laakiin waa waxyaabahan oran karayo hadda ciidii dhaweyd baan hooyo wada joognay and I get a lot of energy laba sano ka hor baan wada ciidnay 2023 Ramadaankii ka horeeyay laakiin hadda markaan ku noqday I feel like ina energy badan soo helay marka isku day waalidkaaga inaad xiriirisid isku day inaad iyaga wax tartid isku day inaad ka fikirtid noloshooda waayo intii aad yarayd ay Allah musta'an wax badan ku soo galiye adigana saas bay ubadkaaga ku noqon doonaan instead aad wax badan raadin lahayd wax yar ee barakada la raadi book bajrel la yiraahdo the Baraka Effect on channel kii nagu wadaagay barakada nolosha ka raadi noloshu wax waaweyn ma noloshu maaha guriyo waaweyn maaha noloshu maaha team badan maaha noloshu waa wax yar oo baraka uu Ilaahay kugu galiyo ayaa ka raaxo badan barakadaas deganaan bay ku siinaysaa raaxo qalbi bay ku siinaysaa dad badan oo maanta arkaysan raaxo qalbi inay haysan ma macquula marka wax yar ee barakada badan baa ka fiican wax badan oo bila baraka inaad sabir u yeelatid sida wax loo qorsheeyo iyo inaad urgent si degdeg wax u qabatid markay noqoto inaad wax sugi karaysid move fast speed is everything noloshu way tagaysaa noloshu waxaan aadaysataa ibn aadanku Ilaahay muxuu yiri khuluqul insana ajula ibn aadanku wax laga sameeyo waa ajal waa degdeg marka positive iyo negative way yeelan kartaa laakiin waqtigaad haysataa waa waqtigaad nooshahay maanta maxaad kala hadhay waxa bari la tagi doona ma do it fast do it now move fast speed is everything nolosha wax kasta waxyaabaha kale nolosheeda ka bartay waxa weeyaan markasta adigu isku mashquulshid ka fikirtid noloshaada iyo maxaan helayaa iyo markasta ka fikirtid inaad dadka kale u shaqeysid waa markasta raaxo helaysid hadda imika noloshaada aad dareemaysid depressed ama stress ama dareemaysid adiga isku dhex mashquulsan laakiin haddaad ka fikiraysid sidee baan dadka u caawiyaa sidee baan dadka wax ugu taraa sidee baan dadka uga fikirayaa rasuulku waa ilaahay calayhi salaatu wasalaam dadka wax ugu khayr badan kiina wax ugu waxtarka badan ka fikir inaad dadka wax tartid dadka waxtar ka fikir inaad dadka wax la wadaagtid muuqaal duub wax la wadaag wax u qor wax la dadka u shaqee adduunkan aynu joogno imika waan soo safray waxaan isweydiinaynaa adduunkan billions buu Ilaahay abuuray qof oo barkood xagan ku nool yihiin oo luqad kale ku hadlayaan oo ka duwan yihiin oo si kale naxmaatan waa arkaysaa paranka sidii ibn aadanku yahay waad arkaysaa marka ka fikir inaad dadka u shaqeysid rasuulku waa kiilaha kiina ugu khayrka badan leh waa kiina ugu waxtarka badan leh dadka marka iska fikir adoo iska fikirin dadka qayb iyagu isku dhex maqanoon aan maxaan helayaa aanu san ma jecli aanu kan kala meehi nobody cares taas waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan inaad dadka u shaqeynaysid inaad dadka ka fikiraysid inaad dadka dhiirigelinaysid inaad dadka qof waxtar leedahay haddii kale useless baad noqonaysaa intaas in ka badan way soo socotaa insha Allah haddii la yiraahdo dhammaanteen waxaanu u baahanahay qof ina dhiirigeliya ina challenge gareeya inagu taageera waxyaabaha aynu rabno haddii aanad adigu qofka helin adigu qof noqo haddii aanad adigu qofka helin adigu gaar ahaan naftaada u noqo